السلام عليكم. waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel walba ay joogaan. waxaan halkan ka baafinayaa hooyaday oo iga luntay waa hore oo aan isweynay wadana adduunyo iyo wixii kale ilaahay qadar aan isku weynay. hooyaday iga luntay sanadka markuu ahay 1995 ilaa haddana aan arag warkeeda iyo macal nolosheeda iyo meel ay ku dambeysay aan ogeyn. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa qof walba aragto fiidiyogan inay igu soo hagaajiso meel walba oo joogto hooyaday qofkii aqoon u leh ama magaceeda garanayo. hooyaday oo magaceeda la dhaho Xaawo Aadan Haaruun. Xaawo Aadan Haaruun baa la dhahaa. wiil waxaa la dhashta la oran jiray Xuseen Daqare, Xuseen Aadan Haaruun iyo Maxamed Aadan Haaruun. labadaas wiil baan ka garanayaa walaalayaal. aan wax kale ka garanayo ma jiraan. dhalashadeeda sidaan ku maqla waa dhul mahanto. halka ay deegaanta waxaan ku maqlay Beled Xaawo ayaan ku maqlay. maadaama aan hadda faahfaahin si dheeraad aan u laheenin ma garatay. aniga magaceygana waxaa la dhahaa Ifraax Maxamuud Maxamed Siyaad ayaa la dhahaa walaalayaal. famil ahaanteyda ama reerkan ka dhashtane waa Abgaal Cusmaan. qaasatan maxaa dhihi jiray Ursinkili. waayo waxaan doonayaa waxaan familkeyga jifideeda u sheegay waxaan doonayaa inaan helo hooyaday. qof walba waa garan kartaa walaalayaal oo hooyadeed ka maqan tahay. ha ila yaabina fiidiyowgaan soo duubay because hooyaday iga maqan. wallaahi waa iga dhab nolosheeda maana arkin 20 sii dhaaf weligeed ilaahay maana arkin hooyaday. aniga maanta naag weyn ah oo hooyo noqoto ama noqotaba garatay. waxaan ka codsanayaa qof walba oo muslim oo fariinta aragto inay ii gudbiso hooyadiina meel walba meeshii joogto. waxaan ka codsanayaa hooyo macaan ila soo xiriir. hooyo haddaa aragti fiidiyowga ila soo xiriir hooyo macaan. aniga waan ku jeclahay hooyo laakiin aniga meela joogto ma aqaanin. halii dibadba hooyo meesha joogto ma aqaanin aniga. waxaan ogahay hooyaday anigoo 3 bil jirta inay iska kay dhigtay oo ilaa haddaan aana meel aan ku ogeenin. waxaan kaloo maqalka ku qabaa 5 sano anigoo jira inay soo hadashay oo aan ogay meel ay joogto. anigana xilligaas ma aana garan dhar inay waxyaabo ii soo dhiibto waan ogahay. gabadhayda halaysiyo ee dhahday si fiican aan u xasuustaa. hadda hooyo xasuus leedahay soo xasuuso. haddaa dhimatane allah kuu naxariisto jinnadina allah kaa waraabiyo. kitaabkaagana garabka midig allah kaa sii hooyo macaan. ani aad ku jeclahay. meel walbaan kaa baafiyey meel walbaan ka raadiyey si walba aan u raadiyey waana waay hooyaday. ani waxaan ka codsanayaa waxaan meel hooyo waxaan joogaa ani magaalada Muqdisho qaasatan degmada Yaaqshidan joogaa. ila soo xiriir. waxaad igala soo xiriirtaa taleefon lambar aan hadda kor ku soo qori doono hadduu ilaahay yiraahdo. korna aan hadda ka sheegi doono. furihiisa waa 5 39 43 9 furaha waa 5 39 43 9 igala soo xiriir meel walba dalkii dibad aad ka joogto hooyo haddaad nooshahay ama abtiga waa Xuseen Daqare Xuseen Aadan Haaruun. abti in badan la iga sheekay laakiin ani aqoon kuma lihi. waxaan rajaynayaa insha Allah inaan mar dhow ku helo. intaasaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay fiidiyowga ii sii gudbiyaan walaalayaal. ii sii gudbiya qof walba aragti waa inay share dhahdaa si bini'aadnimada ku jirto. intaasaan ka codsanayaa khayr badanaana idin rajaynayaa. hana ila yaabina gabar yar oo fiidiyow soo duubayso waa ceeb laakiin qof haddii hooyada ama waalidka ka maqan yahay wax walba kugu qaadato waad soo duubaysaa. marka waxaan ka codsanayaa inay ii sii gudbisaan share si dhahdaan si qof walba ay u aragto. waxaa laga yaabaa inaan hooyaday ku helo sidaan si kale ku raadiyo ma aqaan. aniga kulay meel deeganta ma aqaan. xagin ka raadiyaa idaacadan tago meel kastan tago bisha cas waan daalay. marka hooyo waxaan ka codsanayaa haddaad hal naxariis kugu jirto oo nooshahay waa inaa isoo raadsataa hooyo macaan. saan kuu soo raadiyo kale hooyo isoo raadi. in badan aan ku jeclaa. I love you hooyo macaan.